بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلمتنا waxay ku saabsan tahay habeen sharafeedka ku jira bisha Ramadaan, carabina lagu yiraahdo Laylatul Qadri, oo macnaheedu uu yahay habeenkii sharafta. Halkaas waxaad ka garanaysaan habeenkaasi inuu ka duwan yahay habeenada kale oo maamuus uu mudan yahay. Habeenkaasi waa xaflad weyn oo caalamka soo marta habeenkaas bisha Ramadaan ku jira oo lagu dhex qariyay oo la yiraahdo Laylatul Qadarka. xafladaasi muslimiinta meel ay joogaanba waxaa kala soo qayb galaya malaa'ig kala soo qayb galaysa, malaku Jibriil ayaa hogaaminaya. sababta ay sharaftaas ku yeelatayna waxay tahay waa habeenkii lawxul mahfuudka laga soo qaaday quraanka asagoo dhameystiran lana keenay guriga la yiraahdo guriga sharafta Baytul Izz. waa wada sharaf habeenkaasi. soo qaaditaankaasi habeenka uu ku soo aaday ayaa sharaftan loo yeelay, wuxuuna sharafta ka kasbaday kitaabka Ilaahay soo dejintii la soo dejiyay. mana aha soo dejintu midii tafaariiqda ahayd ee nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu soo dejinayay 23 sano waxyi uu ku soo degayay. waa tii koowaad ee soo qaaditaankii kor laga soo qaaday lawxul mahfuudka ayay ku soo aadan tahay. saas Ilaahay wuxuu leeyahay إنا أنزلناه في ليلة القدر. قرآنك وحان سو دجيني بمعنى أسوأ دميسترا وسيدة هذا وياه أيا وحان كسو قادني لوح المحفوظك بيت العزان أيا لكياني. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر وحا أي تاي محاكو أويسي سؤاشاس وسؤال يراهدو براروجين أما التنبيه qofka lagu soo jeedinayo oo warka u soo socda ee loo sheegi doono si uu si fiican ugu dhageysto ayaa su'aasha loo keenaa. maxaa ku ogeysay habeenka sharafta badan ee Laylatul Qadarka la yiraahdo waxa uu yahay? wama adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khayru min 1000 shahr. habeenka Laylatul Qadarka wuxuu ka khayr badan yahay 1000 bilood ayuu ka khayr badan yahay. fi halkaas waxa ku jira waxay tahay ummadan islaamka sida Ilaahay uu karaameeyay maadaama cimrigeeda ummadani uu yar yahay. ummadii hore cimrigoodu uu badnaa oo مثلا nabi nuux oo kala ka soo qaad wuxuu dadkiisa la joogay sida Ilaahay quraan ku tilmaamay فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. wuxuu dhex joogay 1000 sano markii laga reebo konton 900 konton ayuu dhex joogay. marka dadka cimrigaas la eg inta da'dooda ay gaaraysay inaga markii la inoo fiiriyo waxaan noqonaynaa dad saqiir ku dhimanaya noqonaynaa. oo مثلا qowm nuux oo ka reer nuux marka مثلا kooda uu jiro 100 sano wuxuu la mid yahay keena 10 sano jiro kale ayuu la mid yahay maadaama 1000 sano u socdo. marka inagana meeshii lagu dhamaanayo qof 100 gaaray waa qof inaga ka baxayba adeega oo qofkaasi 100 jir ayuu noqday, sariirta ayuu ku ururay. marka dad sidaas cimrigood u kala fog yahay hadhow haddana markay wax qaybsanayaan maxaad adiga isweydiinayo maxaad soo qabsatay adna maxaad soo qabsatay halkaas waxaa ku jira in aad nooga shaqo badnaan lahaayeen. laakiin Ilaahay fadligiisa wuxuu ina siiyay habeenkaas Laylatul Qadarka la yiraahdo kunka bilood ka khayr badan. haddii xisaab loo rogana wuxuu noqonayaa 83 sano iyo 4 bilood ayuu ka khayr badan yahay halkaas habeen. marka qofku Ilaahay waafajiyo cimri oo cibaado ah oo wuxuu haystaa da'daas intaas leega haddii dhowr sano oo isdabaxiga oo Ilaahay soon uu soo gaarsiiyay uu helana cimrigiisa dadkaasi uu dhaafaya una ka badanaya. marka waa arrin in laga faa'iideysto mudan. marka maadaama 10 bisha Ramadaanka aad loo amaanay waxyaabaha lagu amaanay ee aadka sharafta uu sii yeelaya ee laga dhex raadinayo ayaa waxay tahay habeenkaas in Ilaahay inagu caabudayna oo qiyaamkii iyo quraankii iyo ducadii iyo dikrigii wadna inay habeenkaasi aan waafaqno. saasa nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam taharraw laylatul qadri fi al-ashr al-awaakhir min Ramadan. raadiya laylatul qadarka 10ka dambe ee bisha Ramadaan ka raadiya. waliba waxa aad loo sii tilmaamay witterka ama isdheeriga, laakiin haddana habeen mucayan oo si toos loo sheegay ma jirto. xigmadda ku jirtana waxay tahay habeenada oo dhan in la dadaalo ayaa loo baahan yahay. nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa la tusiyay in habeenka ay tahay, laakiin khilaaf asxaabta dhexdeeda ka dhex dhacay daraadi ayaa haddana la ilowsiiyay. markaas waa marka uu leeyahay waxaad ka dhex raadisaan 10ka dambe ka dhex raadiya. marka habeenka Laylatul Qadarka oo sidaas u fadliga badan Ilaahay uu ku tilmaamay salaamun hiya hatta madlac al-fajr. waa habeen saas u fadli badan oo nabad ay ku jirto. ummu Aisha radhiyallahu anha ayaa nabiga waxay weydiisay haddii Laylatul Qadarka Ilaahay waafajiyo maxaan ku ducaystaa maxaan akhriyaa? markaas wuxuu ku yiri waxaad tiraahdaa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. ilaahayow waxaad tahay alla cafin badan, in la iscafina waad jeceshahay, ilaahay u cafi. marka in ducadaas lagu celceliyo maxaa yeelay ducadaasi
haddii ilaahay uu ku cafiyo khayr oo dhan ayaa kuu furmaaya. maxaa yeele waxyaabaha qofka yani ku noqda mushkilada oo noloshiisa adkay waxaa ka mid ah dembiyada uu galo ayaa waxay ka hor istaagaan cimriga barakadiisa, waxay ka hor istaagaan arsaaqda, waxay ka hor istaagaan waxyaabo badan. haddii laakiin ilaahay qofka yani uu cafiyo wuxuu u wada furayaa abwaab alkhayr oo dhan, albaabada khayrka o dhan ayaa loo furayaa. marka yani nuxurka iyo meeshay tahay in cafintaasi ilahay la weydiisto. haddana cafintaasi inaad adiga oo aan wax tallaaba a qaadin ilaahay cafi keliya aad tirahdo lama rabee. waxaa la rabaa asbaabtii la isku cafin lahaa inaad la timaadid. maxaa yeele ilaahay wax walba sabab ayuu u yeelay. haddii aad tirahda ka waran gaajaa ku haysa, wax cuni maayo aan dhergo, ama guursan maayo caruur aan dhalo, ma iskeenayso. ilahay wuu ku dherjin karaa adoo gaajaysan, laakiin haddana sabab ayuu kuu diray oo inaad wax cunto ayaa lagu diray. marka asbaabta ayaa lala yimaadaa. cafinta aan hadda raadinayno ee laylatulqadarka aan ka raadinayno ilaahay wuxuu dhexgeliyey oo sabab uga dhigay inaan inagu iscafino. saasa ilahay wuxuu yihi in tacfuu watasfaxuu watakfiruu fa ina allaha gafuuru raxiim. haddaad macnaha idinku iscafisaan ood issaamaxdaan ilaahayna yani wuu idiin dembi dhaafaya, wuu naxariis badan yahay ilaahay. aayadka ilahay wuxuu ku yidhi walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum. yani ha iscafiyeen oo ha issaamaxeen, miyaydan jeclayn ilaahay inuu idin cafiyo? qof walba jawaabtaas waxaan u malay inuu dhihi doono waan jeclahay ilaahay inuu icafiyo. ma jeceshaha ilahay inuu ku cafiyo? haa, adna walaalkaaga cafi. ummadda soomaaliyeed oo muddo badan khilaafaad iyo dhibaato ay haysatay, laylatulqadarkana habeenadii masaajidada aada uga raadisa, waxay u baahan yihin in loo tilmaamo, in la yidhaahdo tiirarka masaajidka agtooda laylatulqadarka aad ka raadinaysid wuxuu kaaga xiran yahay qalbiga inaad furto oo walaalkaa aada cafisid. iscafintaas waxaa ka dhalanaya cafinta ilaahay ayaa ka dhalanaysa. marka laylatulqadarku waa habeenkaas qiimahaas inooleh oo la raadinayo, oo yani meesha lainoo dhexgeliyey, faa'iidooyinkaas badanna ay ku jiraan. aad in looga faa'iideysto oo loo raadiyo ayaa loo baahan yahay. dadka qaarkii waxaa laga yaabaa inay habeenadii 10 ugu dambeeyay iyadoo lagu jiro oo laylatulqadarkii la raadinayo inay waqtiga wax maalayacni ah ay isaga dhumiyaan oo ay kusoo jeedaan maalan musalsalaad ay fiirsanayaan, ama ay yidhaahdaan waqtigaan isku dhaafinaya turub iyo dubnad iyo waxyaabo xigmadii loogu talagalay in laga faa'iideystay ahayd waqtiga in yani daaco la geliyo. oo yani habeenkani waa habeeno yaroo kooban oo 10 beri ah, yani 10kaas beri meeshii la rabay in aada loogu dadaalo ayaa waxaa laga yaabaa inuu maalayacni uu kaga dhumo. marka dadkaas oo kale waxaan leenahay ka faa'iideyso laylatulqadarka. maxaa yeelay cimrigaaga gaabnidiisa iyo sida aad adigu yani aad waqtiga isaga dilayso isma laha. maxaa yeelay waqtigu waa nolosha oo dhan. saasa waxaa la yidhahdaa alwaqtu huwa alxayaa. marka waqti kaa dheeri aba maba jiraba. sababta ah waxa lagaaga baahan yahay inaad qabsato ay tahay ayaa waxay ka badan tahay waqti aad haysato. alwaajibaatu akharu min alawqaat ayaa la yidhahdaa. waajibaadka lagaa raba inaad fulisid ayaa ka badan waqtiga aad haysato. marka haddii munaasabad yani ay jirto oo yani in laga faa'iideysta ay tahay waa midaan. inay xaflad iyo munaasabad ay tahayna waxaa kutusaysa tanazalu lmalaa'ikatu waruuxu fiiha. yani waxaa soo degaya malaa'igta, jibriil ayaa imaanaya habeenkaa asaga ah. maxaa loo soo diraya? biidni rabbi ilahay baana soo idmaaye. waxaa loo soo dirayaa inay dadkaas kala qayb galaan dadaalka ay ku jiraan iyo daacada. waxaa loo baahan yahay marka waa munaasabada saas oo kale ah yani ilaahay inaan tusino khayr aan ku dhex jirno. ilaahay wuxuu jecel yahay addoomihiisa inuu ku arko meelaha fiican iyo daacadiisa, iyadoo ayna waxba u kordhinaynin ilaahay daacada la daacaysanayo, laakiin qofka samaynaya ayay sharaf u tahay. munaasabadaha waxaa la isugu samaynaya ee diinta inoogu boorinayso yani inaan ka faa'iidaysanana danteenna ayaa ku jirta. adduunyadani waa in yaroo kooban, sida soonkuba uu kooban yahay oo ilaahay uu yihi ayaaman macduudaat, ayaa aakharana waxaa la yidhi wamaa nuakhiruhu ila liajalin macduud. maalmo yar oo kooban unbaan dib u dhigaynaa, kadibna iyadoo la taagan yahay ayaa la arki doonaa. marka wixii xagga lala tegi lahaa munaasabadaha oo laylatulqadarku ay ka mid tahay oo ilaahay uu nicmo ina siiyey ah, oo ah inaan waqtigeena yar intaan kaga faa'iidaysano uu wax badan inugu siiyo. haddii fursad lagu siiyo od ka faa'iidaysan weydo habaar iyo inkaara kugu dhacaysa. waana tii malaku jibriil iyo nabigu ay duca iyo habaar ay isugu dareen oo ah yani jibriil oo ducaynayo oo leh yani iyo nabigoo dhahaya aamiin. markii la weydiiyey nabiga maxaad aamiin u tiri, wuxuu yidhi waxaan arkay jibriil oo yidhi qofkii ramadaan ilaahay gaarsiiyo oo asagoo dembigiisa aan la dhaafin ramadaanku uu ka dhammaado, qofkaas asaga ah naarta alla ha ku fogeeyo. nabiguna uu yidhi aamiin, alla ha ku fogeeyo. marka habaarkaasi waa habaar dhacaya. marka qof walbow iska ilaali habaarkii malaku jibriil oo nebi maxamed sal allahu alيh wasalam aamiin u yidhi inuu kugu dhaco. waana dantaadee laylatulqadarka iyo ramadaanka oo dhan acmaasha lagu dhex samaynayo ha laga wada faa'iidaysto. haddii sanadkan ilaahay ku gaarsiiyey lama garanayo sanadka kale ee soo socda inaad gaaraysid.
fursaddu marka ay kula siman tahay ayaa laga faa'iidaystaa. marka ummadda guud ahaan waxaan u baaqaynaa ilaahayna ka baryana subxaana wa tacala laylatul qadarka inuu ina waafajiyo inagana aqbalo. marka habeenku habeenada la mida ma aha, waa habeenada ka duwan. aad iyo aad in loogu dadaalo oo loo raadiyo ayaa loo baahan yahay. waqtiga harayna waa waqti yar iska kooban, waqtiyadaasi ha laga faa'iidaysto. guud ahaan ramadaankiina yani waa nooc tarbiya oo la isku tarbiyeynayo dadku inay la qabsadaan ilaahay, inay caabudaan, iimaankoodana uu kor u kaco oo ilan iimaanku daacada ayuu ku ziyaadaa. waxay la mid tahay baabuur safar ah oo kaalin shidaal ka buuxsanay ayay mu'miniintu la mid yihiin bisha ramadaanka marka la joogo. marka shidaal fiican in la qaatay ayaan rajaynayaa. laylatul qadarka raadintiisana ay noqoto shidaalka ugu weyn oo aan raadinayno. allahna waafajiyo, allahna naga aqbalo. qofka saas u raadiyana laba farxadood ayuu leeyahay nabiga soo tilmaamay. markii afurka la gaaro ay u dhamaato bishii, lisaa'imi farxataan, farxatun cinda fidrihi wa farxatun cinda liqaa'i rabbi. marka uu afuraayo oo intuu 30kii beri dhammeeyo gadaal iska marsiya ramadaankii oo la yidhahdo waa ciidii oo berri soonkii yani wuu dhammaaday. qofkiis asaga ama sunno soomaaya waa wax kale, laakiin waajibkii halkaasuu ku ogyahay inuu waajibaadka ilaahay soo gutay, kayd fiicanna uu dhigtay. gadaal markuu milicsado maalmihii ramadaanka iyo habeenadii ramadaanka wixii acmaala uu kusoo qabtay qofka mu'minka farxad ayay u tahay. waana mid aan wada dareenno oo qof walba uu ka dareemayo qalbigiisa. middan waxba ma aha oo farxadda adduunku meelay ku dhammaato ayay leedahay, laakiin farxadda aan dhammaanaynin waa midda aakharo oo farxatun cinda liqaa'i rabbi. ilaahay markii lala kulmaayo ayaa aad loo farxaya. maxaa yeele waa la maamuusaya dadka soomanaa oo ramadaan ka faa'idaystay. albaab u gaar ayaga ayaa jannada ay ku leeyihiin oo ay ka galayaan oo arrayaan la yidhaahdo. dadka keligood ayaana ka galaya. marka fursadahaas waa wax yani aad iyo aad u qiimo badan. ilaahayna aan uga mahadino. sidaasuu ilahay wuxuuna leeyahay walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa ma hadaakum walacalakum tashkuruun. tiradan inay dhammaystirkeeda iyo takbiirta ciidda oo la qaado marka ciidda la gaaro, walacalakum tashkuruun. ilaahay inaad u mahad celisaan ayaad mudantihiin. inuu ramadaan iyo qur'aan iyo laylatulqadr iyo cibaado iyo alla bari iyo khayraad badan bishii mawsimka khayrka ah ilaahay inuu idin siiyey oo muslimiin idinka dhigay idinna waafajiyey. ilaahay inaad uga mahad celisaan. ilahay baan u mahad celinaynaa. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. allihina waafajiyey. waxaana weydiisanaynaa ilahay inuu inaga aqbalo. camalka waa la qaban karaa, laakiin aqbalka ayuu qiimo ku leeyahay. aqbalkana ilahay wuxuu ku aqbalaa inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin. dadka ilaahay ka cabsado ayuu wax ka aqbalaa. marka ilahay in laga cabsado waxa loo soomayana waxay tahay in la xaqiijiyo alla ka cabsi. nolosheenna guud ahaana sida aan soonka oo isaga ilaalin inaan biyo cabno maalintii ama cunto aan cunno ayaa xaaraantana waxaa loo baahan yahay iyada aan marna xalaal noqonaynin in ayadana la isaga ilaaliyo. sidaas intaas oo la isku daray oo yani xumaatadii oo la iska daayey, daacadii oo lagu sabray, khayrkii oo lagu dadaalay, sabir ayay ku macno tahay. sabirka macnihiisana iyo abaalkiisuna ilaahay keli ayaa gudi kara. inamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab. ilaahay naga aqbalo soonkii aan soonnay 10ka ramadaanka ee ugu dambaysana khayrkiisa allahna siiyo. laylatulqadarkana allahna waafajiyo. ummadeenna meel ay joogtaba ilaahay ha u gargaaro. dal iyo dibad meel aan joogna allah inagu ammaansado. muslimiintana allah u gargaaro meel ay joogaanba ilaahay guul ha siiyo. hada wabillahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.